waxay idhaheen maxaad u qoslaysaa adigoo intaan dhaawac kugu yaalo waxaan ugu jawaabay maxaan sameeyaa dabeecaddeeda ayaa sidaa noqotay qosolkana xanuunka ayuu ii ilaawsiinaa haddana waxay idhaheen halahanoo dhaawac ayaa kuu geystay waxaan ugu jawaabay saaxiibkayga aan dunida ugu jeclahay intay yaabeen ma iga aamusin oo su'aal kale ayay igu dareen waxay idhaheen maxaad ka samaysay oo uu dhaawacan kuugu geystay waxaan ku dhahay qasab ma ahan inaad ogaataan ee muhiimadda ka hadla waxay ugu soo celiyeen aaba isaga hadda waxaan dhahay wuu faraxsan yahay xagga ayuuna joogaa dadkii yaabkooda ayaa yaab ugu sii darsamay haddana weli way i su'aalayaan waxay idhaheen maxaad u dili weyday anna waxaan dhahay raalli noqo ayuu i dhahay anigana guusheeda saxda ah ayaaba midaas ah waa wiil wanaagsan wuxuuna ku hadlay xaqiiqda sheekadan haddii aan idiin fasiro dhaawaca jirkiisa ku yaala waxaa loola jeedaa beentaasuu saaxiibkiisa u sheegay dadka uu la hadlayana waa nafsadiisa ama shayddaanku wuxuu ku dhahay saaxiibkaaga qalad ayuu kaa galay maxaad u dili weyday saaxiibkana ugu dambayn qaladkiisa waa u qirtay wuxuuna ku dhahay iga raali noqo mid ayaan kugula talinayaa weligaa nafsadaada ama shayddaan marnaba yaysan kaa tanbadinin